السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu dhexda uga jirnay cashiraanteeni aynu ku baranaynay softwareka QuickBooks versionka 18 marka waxaynu soo gaarnay cashiraanteeni inagoo dadka aynu wax ka soo iibsano intaynu soo xareysanay aynu wax si aynu la soo tacaamulay aynu waxna ka soo waxyaalo badan ka soo iibsanay marka maanta waxaynu cashirkeena ka hadlaynaa cashirkeenan iyo dhowrka cashir ku xiga waxaynu kaga hadli doonaa customers dadka inaga zabaa'inteena dadka macaamiisheena inaga wax naga qaata dadkaas iyo shaqada la xiriidha markay wax naga iibsadaan markay wax naga qaataan wixii shaqo ee la xiriiro dhan baynu darsigeena iyo ku xiga kaga hadli doonaa hadii la yiraahdo marka maanta bal darsigeena horta aynu ka hadalno dadka macaamiisheena ee inaga wax naga qaata ama aynu wax u qabano dadka aynu lacagta ka qaadanay inagu horta bal aynu xareysano oo iyagii horta bal aynu softwareka ku xareyno halka customers baad ku dhufanaysaa waxa kale oo ku dhufan karaysaa halka customer ay ku dhufan tahay ay ku qoran tahay baad halka yar customer center ka waad ku dhufanaysaa isla halkan uu isna ku keenaya okay waxaan rajaynayaa inaad marka aan customer center kan sidan u furay inaad fahantay waxaan wuxuu ka dhigan yahay customer center keenu sababtoo tahay wuxuu u eg yahay vendor center keeni marka aynu vendarada ku soo dareynay sidoo u ekaa u eg yahay oo waa isku nooc marka aynu bal imika waxba inooma jireen bal horta aynu dadkii macaamiisheena aynu soo xareyno okay marka halka yare u sareysay new customer ay ku qoranta marka ku dhufato saddexdan baa ku soo baxaysa saddexdan waxa weeyaan waa customer qof macmiil jadiid ku darso ama shaqo ku dar shaqadani maxay tahay shaqadani waxa weeyaan macaamiisheena haday jiraan dad macaamiil gaar ah oo shaqooyin gaar ah u qabano halkan maad ku daraysaa waynu ku dareynaa sida ay u shaqeeyaan oo eegayna halkan u hooseysana sida aynu ku soo aragnay vendarada markaynu soo xareynaynay waxaad sameyn karaysaa dhowr macmiil baad hal mar ku dari karaysaa iyo dhowr shaqo okay bal marka macmiilkeena u horeeyaan ku dar macmiilkeena u horeeyo magaciisa barayno niraahno maxamed axmed iskada maxamed axmed hadii aynu lacag aynu ku sii lahaynay jirto halkan baan gelinaynaa taariikhdaasna waa taariikhda saxda ana halkaas waynu gelinaynaa aynu lacagta ku lahayn address information kiisa company name kiisa maxaa leedahay mesela maxamed company baa iska leedahay laakiin waa inuu markaas adigu qofkan macmiilkaaga waa inuu company leeyahay laakiin anoo waxaynu imika leenahay maxamed company okay full name kiisa waad buuxinaysaa markaas aad u buuxiso waxa laga yaabaa inaad isweydiinaysid markaynu vendarka soo mareynay iyo imika customerka markaan mareynaba maxaa laba mar magac xagga iyo xaggan maxaa looga baahanayaa oo xaggan waad ku qoraysaa xaggan waad ku qoraysaa maxaa faa'iido waxaa faa'iido imika markuu addresska soo qaadanayo mar walba aynu qofkan la tacaamulayno aynu invoice u sameynayno aynu wax invoice u qorayno wuxuu halkan buu ka soo qaadanayaa isagoo soo qaadanaya waa tan marka tan faa'iidadeedu saabay tahay tanna programkaan tusayo magacu programkaan tusi doono waan markaynu imika vendorskeena ku laabano customerskeena laakiin marka aynu invoice-ka iyo wixii aynu u dirayno halka uu marka warqadan soo print gareynayna halka uu ka soo qaadanaya magaca waa tan markaas waa inuu la socotid kuwan waad buuxinaysaa oo job title hadii jirto halkan main phone number hadii jiraan kuwan hadaa saa u dhufato intaad ka hayso iyadana waxaynu si fiican ugu soo aragnay vendarkii markaynu soo xareynay vendarada marka kuwan waad buuxinaysaa hadaad qof ka haysid macluumaadka oo dhameystiran inaga mar walba shirkadeenu waa tusaale marka waxaan waan ku tusaynaa on sida aad yani lagaga baahan yahay laakiin inagu ma buuxinayno imika halkan hoose hadaad arkaysid halkan hoose waa halka uu maad aragtay halka ku biil gareynayo weeyaan yani waa shirkadda qofka inuu direyno halkan waa hadii meel kale loo sii ship gareynayo oo loo sii shaxni gareynayo hadii address kale jiro addresska kale aad ku qoraysaa oo halka ka gelinaysaa hadii kalena kan aad doonaysid in isku mid yihiin kan baad copy leedahay copy marka tiraahid halka baad okay ku soo dhufanaysaa toos u taakal halkan kugu geenaya waxaynu xagga ku qoran okay payment settings tag payment setting waxa ugu horeeya account number qofkan macmiilkeena uu nasiiyo haduu jiro halka waan gelinayna okay
payment terms termisyadii aynu soo aragnay markuu qofku midalan ba aynu leenahay lacagta waxaan kugu siinay 30 cisho laakiin hadda 10 ka hore maalmoodii hore noogu keento waxaan ku sameynaynaa qiimo dhimis 100% hala marka termisyo noocaas oo shuruudo ama qofkan ba hadaad idinka dhaxeeyo termis ah inuu qofkani bisha mar walba inuu 30 cisho diinta kugu keena ama 15 cisho kugu keena ama 30 cisho ama 60 cisho yani waa termisyo noocaas insha Allah termisyadan marka aynu shaqada qabanayno ay qof wax inaga iibsanayo yeen termisyadan u sameyn doonaa laakiin halkan waxa lagu keenay waxaad karaysaa mid daa'ina oo qofkan mar walba oo invoice u sameynaysid oo software-ku automatic uga apply gareynayo halkan aad dhigtay oo hadana midalan new hadaan idhaahno termiska magac waan u bixinaynaa kadibna halkan inta aynu u ogolahay qofkan inuu deynta nagala maqnaado yaan ku qoraynaa midalan 60 cisho waan u ogolahay laakiin waxaynu nidhaahdo 25 ka hore noogu keen waxaynu u sameynaynaa 10% 10 qiimo dhimis aan u sameynaynaa marka hadaan inta kaliyo aan okay idhaahdo mar walba on qofkan aan u qorayo invoice tan buu isoo gelinayaa termiska waad qofkan kula tacaamushaa wiilay okay haday delivery method ay jirto oo qofkani prefer gareynayo uu fadlayo halka ma taglinaysaa by email nan haday tahay nan toosad dooranaysa haday jiraan dariiqad uu qofkan inuu lacag ku bixiyo ay jecel yahay halka baad gelinaysaa oo cash ku bixiyaa wad leedahay okay hadaan marka halkan soo doorano Mastercard ama Visa ama kuwan hadaan soo doorno ama debit card iyo waxaan hadaan soo doorano kuwa baynu buuxinaynaa oo credit number-ka iyo expire marka dhacayo intan oo dhan baynu buuxinaynaa laakiin inuu kuma shaqeyno credit limit baa jira credit limit waxay ka dhigan tahay xaggii horena waan ku soo aragnay sidaan idin sheegay inta badan macluumaadkan xaggii vendor-kii waan ku soo aragnay credit limit waxay ka dhigan tahay macmiilkan aynu la tacaamulayno intee in la eg baynu u ogolahay inaynu amaahina la kharash intee la eg waynu lacagtaas aynaan dhaafin karin haddaad tiraahdo midalan $2,000 qofkan inaan u dhaafiyo mudoonayo marka aad 2,000 agaab intaad u sameyso 2,000 ay agaabti dhaafto computerku software-ku wuxuu ku leeyahay war qofkan 2,000 baa u ogolayda waad dhaafisay ma la socotaa haddaad haa tiraahdo waad sii sameyn karaysaa haddii kalena maana ogeyn ka laabaad leedahay okay price level baa jira price level muxuu ka dhigan yahay marka price level haddaad xasuusataan markii aynu inventory-geena cashiradii aynu kaga hadlaynay waa inagii soo sameynay price level saddexda inaga soo sameynay oo waxaynu nidhi hadday jiraan macaamilo inoo gaar ah nidhi oo mar walba agaabta naga qaata mar walba lacagta cash nagu siiya mar walba lacagta naga amaadaan hore noogu keena laazim way ka duwanaanaysaa qofkaas aad ula tacaamulaysid macaamiisha kale sidaad ula tacaamushid marka waxaynu u sameynay qiimo dhimis oo inaynu agaabtii intaynu siin jiray inaynu 2% isaga hoos ahaan uga dhigno hadduu qof marmaru naga iibsado yahay lacagta laga raagay yahayna inaynu 5% ku dalacno waa qiimo aynu dadka gaar kula tacaamulayno ka ABC-ga hadda xasuusatiina waa cost-gii baynu intii agaabtina laga soo siiyay qiimihii aynu u sameyn laakiin tan labadani inagu taynu siinay ahayd laakiin taas tiina laga soo siiyay dalacantay baynu nidhi marka qiimo dhimistan waxaan ka wadaa price level-kan halkii baan ku soo sameynay oo marka haddaadan darsiga soo daawanin listiska baan ku soo dhufanay listiska markaad ku dhufatid price level baad leedahay price level markaad ku dhufatid halkan ma ku ka soo sameynay mid jadiid haddaad sameynaysid halkan ku dhufo new markaad ku dhufatid halka marka shaqo dheer baan xaga ka soo qabanay okay price level-ka sidaa bay marka u shaqeeyaan marka waxaa lagu yiri may jirtaa price level aad qofkan u sameysid oo price level-ladan soo sameynay ma jirtaa midalan waxaan oran kareynaa qofkan waa nin wanaagsan agaabta hore buu lacagta noogu keenaa mar walba lacag naqduna siiya cash halka baad downtown ku dhufan kareynaa marka inaad adu la socotid weeyaan hoos hadaan soo socono sales tax iska soo dhaaf additional information kan waa macluumaad dheeri ah oo aha customer kan nooca uu yahay noocan muxuu kaaga qaataa agaabta ma jumlo ma tafaariiq customer kan waa noocyo jadiid ah haday jiraan oo customer kan doonaysid inaad tiraahdo waa nooca halka baad kaga daraysa aad iyo walaal
okay rabtan maxay ka dhigan tahay rabtan waxay ka dhigan tahay sales representative la yiraahdaa yani waxa la yiraahdaa manduubul mabiicaat waa qof shaqaalaha kamida oo qaabilsan qof macmiil gaar macaamiishaada mid kamida yuu qaabilsan yahay marka maxaad sameynaysaa xarafka u horeeya yaad qoraysaa marka qofkan magaciisa taad qoraysaa marka reebtaas ka dhigantay saa ula soo okay custom fields baa jira custom fields kani maxay ka dhigan yihiin haddaad xasuusataan markii aynu soo xareynaynay vendors keeni waxaynu soo sameynay fields la yiraahdo naanays baan soo sameynay naanays tan inaga sameysanay oo waxaynu niri waxaad noogu dartaa qaybta customerka qaybta vendorska qaybta employeeska marka aynu xareyn doonana waynu ugu tagi doontaa naanays waynu ugu tagi doonaa computer ma software isagu nooma sameyn inaga sameysanay isaga fursad noo siiyay inaynu sameysano waxa la mid ah oo sameysan kartaa wax walba oo doonaysid inta lagu siiyay waxaan ahayn oo doonaysid inaad adigu ku siyaasatid halkan baad ku dhufanaysaa define field list marka ku dhufatid halkan baad waxa doonto gelinaysaa maxaa doonaysaa ma customerka inay agaabta halkan fieldiska lagu geliyo mise vendorska mise employee-ga midka aad doonto aad ku dhufanaysaa marka sidaa baad u soo gelinaysaa marka haddii qoftan tan inaga soo gashan inaanaysa dad qofka ka haysid ama adigu wax kale oo doonaysid adigu haddaad jeceshahay in halkan marka soo biirsanaysaa job information intaynaan gelin bal horta job aan ku soo daro marka kan customerkan sida aan ku xareyno okay marka imika maxay aragnay halkan customerkii baa noo soo galay hadday customerradeenu inta ay leeyihiin ba halkan bay noo soo wala imanayaan marka aynu mid saa ugu dhafanana macluumaadkiisii baa xagga noo soo baxaya oo imika company name-kiisa waa kaas full name-kiisu waa kaas halka address-ka lagu biil gareynayo agaabtu waa halkaas haddaad doonaysid inaad wax ku soo attach garayso oo leedahay document igu soo dar video wax uu xun qofkan ku saabsan igu soo dar xagga madka ka darsanaysaa haddaad doonaysid inaad qofkan macluumaadkiisa edit garayso imika qadan ku dhufay editan wuxuu nageynayaa halkii imika aan ka soo sameynay xaggan hoose waa transactionadiina dhex dhacay ninkan maxamed axmed la yiraahdo iyo inaga wixiina dhex dhacayba halkan kugu soo taxmi inaka ilaa imika inagu waa jadiid qofka imika baan sameynay wax transaction ma jiraan laakiin marka ay jiraan aynu sameynaa halkan bay wala imanayaan waxaynu ka dooranaynaa halkaas oo waxaan leenahay sales transaction dhex dhacayna tus balance-giisa oo faahfaahsan na tus payment and credit na tus sales order invoice waxaas oo dhan okay markaad mid doorataba taaba ku soo bandhigaya xaggan hoose manage transaction ay ku qoran tahay waxaad sameyn karaysaa inaad sales order qofkan u sameysid invoice inaad u sameysid sales receipt inaad sameysid halkan inta halkan kuugu jirto waxa kale oo ka arki karaysaa halka new transaction ay ku qoran tahay inta halka kuugu jirto ba iyadan kuugu jirto shaqadii baad halkan ka qaban karaysaa ka dhigan tahay laakiin inagu marka aynu ku soo darayno qof mar walba qofkan meeshiisa kuma jiro markuu qofku wax naga dalbanayo oo si aan halkan u imanna hadana laakiin meel kale oo ka fudud oo marka aynu nooga sahlan baynu ka soo xareyn doonaa wixii madaragtay ku saabsan okay halka ku xigta oo kale contacts-ka haday jiraan wax contact ya adayna jirina halkan bay ku soo baxayaan hadayna jirina halkan baad ku qoraysaa oo new inta taahid baad contacts-kiisii oo dhan xaggan ku qoraysaa inagu markay new ka soo xareynay wax contact ma soo xareyn laakiin hadaynu soo xareynay halkan bay noogu iman lahayd to do's baa jirta to do's kan waa inagii si fiican u soo macnaynay markaan vendor-ki marinay laakiin haddaan ku yar celino waxay ka dhigan tahay waa waxaad doonaysid inaad qabatid oo qofkan la يعني إذا أديك يقف كان إذا كده حيو دوني سيدنا تقبتيد مثلا بحن دونينا ميتين إن نقف كان ولا إن الله كلنا دونينا ميتين يعني انتبه أهمية لهذا هاي وقف كان لسه مين يسيد وأسكت حد بان لنا وأسكت حد مركا كاستمر كان إمك إسقي بان نود دوران لكن هدو قف كان نوجد جرو هوست أو نص صباح لها هدونا نود دوران مركا قف كاستمر كان لسه مين إنه إسقان دوران إنه مركا taariikhda aan la sameynayno qofkan ba halkan ba taariikhdaas aad ka dooranaysaa saacad aad doonto inaad si xadid saacadii baad ka dooranaysaa 12 ka waxaad leedahay waa saddexda oo biila okay wixii tafaasiisha meeting-gana wuxuu ku saabsan yahay waxaad leedahay waxaan ka wada hadli doonaa yani arrimo wixii ka dhaxeeya baad halkan ku qoraysaa aad ka wada hadlaysiin marka startska waxaan wuxuu maartay xaaladdu ku sugan yahay meeting-kani
ولي active ayo ma la sugayaa sheekada mar la qabtay oo soo iska inactive gareynaysaaba midka doontaad imika isna marka mid ku yahaad ku dhufanaysaa marka taana saabad la soconaysaa oo marka stadiski iyo type-ku wuxuu yahay halkan baad mid walba haday to-dos far badan jireen halkan buu ugu soo bixinaya marka mid doorataba ti wixii koola halkan buu soo dhigay haday jiraan mid active ama oo wali la qaban kuwa la qabtay waxa xaggan buu soo dhigay marka kuma dooratid date-kii aad taariikhdii aad qofkan u sameysay meeting aad doonaysaa la sameysay halka baad ka sii dooranaysaa uu ku soo bandhigay xaggan buu ku soo dhigaya okay notes-ka halkan waa halka uu ku geynayo imika halkan oo kale haddaan notes-ka ku qoro waa nin wanaagsan ninkan markaan doonayna inaan hano waa nin wanaagsan markaad tidhaahdid okay tidhaahdid halkaa bay ku tagaysaa waa nin wanaagsan marka hadday jiraan yacni waxyaalo noteska sidaas oo kale halkaa baad ku qoraysaa email-ladii aad isku dirteen halkan baad ugu tagaysaa oo yacni iyagoo dhammaystiran okay marka qofka baan ku darsanay bal hadda qof kale imika aynu ku soo darsano macmiil kale aynu ku soo darsano macmiilka kale waxaynu leenahay Hibaaq Umar marka hadduu jiraan qofkani lacag aynu ku sii lahayn halka baad gelinaysaa haddayna jirinna iyadoo bannaan baad ka tagaysaa macluumaadkii kale intan kale information-ka kale waa tii aynu imika ka hadlaynay wax ay ku kala bedelan yihiin male marka inta aynu ku wala noqon lahayn waqtiga baan ugu dheeraan marka adigu ka hor haddaad si fiican u fahamtay sida uu wala xaree imika magaca baan looga baahan yahay marka okay baan leenahay marka halkaan baa noo soo wala galeen dadkii maanta dhan haddaynu galgalno halkaan baa noo soo wala galayaan marka sidii halkan waxa ku soo galaya halkan yar kale haddaad arkaysid waa active customer baa kugu qoran hadda halkaas sida ugu dhufto waxa soo baxaya all customers baa dooranaysaa yani dadka halkan lagu soo bandhigayaa waa doonayeen xagga lagu soo dhigaa waa dadkee customers oo dhan baa active customers waxa ka dhigan tahay imika customer keenan waynu xadfi kareynaa oo waynu maartay waynu iska dhigid gareyn kareynaa oo delete customer aan joodayn ilaano waynu iska dhigid gareynaa sababtoo tahay inaga ilaa imika wax transaction dhex maray ma jiro imika hadaan delete ilaahdo ma iska dhigid gareynaysaa wali hadaan ilaahdo qofkan uu delete yani wuu naga dhigid gareynaya laakiin hadduu qofkan wax transaction wax shaqo hadayna dhex martay ma delete gareynayo oo ma delete gareyn kartid kulaha laakiin maxaad sameynaysaa inactive baad ka dhigi karaysaa oo qofkan iga khabee iga qaribaad leedahay laakiin marka aan u baahdo aan shaqo kale aan doonayna aan dhex qabatana noo soo celi bal hadda inactive aan ka dhigno marka qofkii imika naga khabeysmo oo inactive weeyno xagga kama arkayno laakiin marka aan doonayna inaan shaqo la qabano qofkii oo madarta oo mar dambe hadana shaqo kale naga dhaxaysiiso bal halka ku dhufo all customers marka imika waxaan noo dooran active customer laakiin all customers isagii baa ku soo baxay marka qofkii baa ku soo baxay marka halka ay calaamad daayira ku dhufsan tahay oo ku dul dhufo qofkii active baad ka dhigtay marka active customer ka tusto sidaa ka dhiganta bal marka inta aan ku dhaafno macaamiishan xagga aan ku dhaafno oo soo gelino shaqo bal aan soo gashano halkan saynu active gareynayno iyo saynu delete gareynayno waxa isku mid ah vendorska iyo customerska iyo employeeska inta shaqada ay nimka tan intaan sameeyay gebigood ku wala sameyn karaysaa oo sidaan oo sameeyay number wala sameyn karaysaa bal hadda shaqo jadiid aan ku soo darsanay marka shaqo jadiida aan ku soo darsano marka aad doonaysid inaad shaqo jadiida ku soo darsatid shaqadan qof baad u qabataa qof macmiilkaaga oo shaqadan la xiriir jirta qofka ku dul dhufo horta marka saa ugu dul dhufatid imika waxaan doonaynaa inaan hibaaq u sameeyno shaqo yaan u qabanaa marka aad iyada ku dul dhufatid aad shaqada marka tiraahdo shaqadaas magaceedu waa maxay marka shaqadan aad u qabataa waxaan leenahay hibaaq waxaan u sameeynaa okay shaqadan baan u qabanaa marka haddaynu halkii yareeyada job information-ka haddaanu ku dhufano shaqadan description-keeda xagga ma ku qoraysaa oo shaqadan waxa ay tahay marka customer-ka aad shaqada u qabanaysaa halka waa lagu doorto shaqadan waxay tahay description-keega waa xoogaa tafsiilinaysaa shaqadan noocee weeyaan hadday nooceeda tahay imika installation oo kale haddaynu halka ku qorano noocaas weeyaan shaqadu hadday noocyo fara badan shaqooyin fara badan hadday jiraan okay status-ka shaqadan may socotaa may dhamaatay halkan marka sida ugu dhufato kuwan buu ku soo saaraya kuwani
waxaynu hore u soo sheegnay inay terminology yihiin oo soo badbeddelin karaysid oo adigu sida Soomaali ahaan aad ku soo qoran karaysid oo oran karaysid shaqada wali ma aan qabanin wali waan wadnaa wali meena dhamaanin ama shaqadan waan dhamaynay marka kuwan haddaad doonaysid inaad iska soo bedisho halka editka ku dhufo preferenceska ku dhufo halkan job and estimates ku dhufo ku qoranta ku dhufo company preferences kuwan haddaad doonaysid inaad iska bedisho adigu wixii shaqadaada aad qabanaysa aad doonaysa in lagu qoro waad ku qoranaysaa iyo waxaad leedahay wali ma qabanin wali waan wadnaa waxa doontaad ku qoranaysaa marka okay dheh halkaana saabaad ka soo bedelanaysa shaqadan taariikhdeed bilaabaysaa taariikhdood ku dhufanaysa iyo dooranaysa taariikhda projectkan loogu talagalay imika installation keena goormee ugu talagalay inuu dhamaado halkan baan gelinaynaa laakiin dhamaadka saxda ah ay dhamaatay taariikhda ay dhamaatay waa goorma tan tii aan ugu talagalay laakiin tan waa tii runta ay u dhamaatay marka shaqada iyadana sidaa baad ugu soo daraysaa laakiin xaggan macluumaadkan kale waa qofkii macluumaadkiisii imika inagu maynaan hibaaqdan waxba maynaan macluumaadkan u buuxbuuxinin laakiin markaan macluumaadkan qofka hadduu u buuxbuuxsan yahay sidii qof macluumaadkii aad buuxbuuxsan baa xaggan ku qoran ee lagaagama baahna inaad imika kuwan soo buuxbuuxsid taana sidaa wada la soconaysaa oo shaqadani qofkan bay raacsan tahay shaqadani raacsan tahay marka okay sidaad arkaysid halka dib uga yar dhigay sidii sub itemkii iyo sub account markaan sameynayno soo ma xasuusatiin inuu agaabta dib halkan maartay ka weyn inuu hoos dib uga yar dhigay sidii oo kale markaa uu sameeyay oo wuxuu sameeyay dib in qofkan shaqadan hoos uga yar dhigay waxaana qofkan bay shaqadan la socotaa. Assalaamu calaykum.